barqa wanaagsan saaxiibayaal sida dhantii malkasta dunida ka joogtaan fadlan haday tahay daawashada Kuris channelka subscribe saaro si aad ula socoto shaxaha maalin walba aan soo dhigno intaa kadib fadlan shaxda daabo shaxda inaad daawato waxay ka saacideysaa inaad meelaha qaar is leedahay meel hebel in laga bedelay ku qurxan tahay ayaad ka bedeli kartaa shaxda inaad daawato waxay ka saacideysaa inaad go'aan fiican ka qaadato marka please shaxda daawo meeshaas leedahay waa laga bedeli karaa ka bedelo haddii sidaas kugu qanacsan ku qaado inta kadib maanta sida ka warqabtaan waa kulamada khamiisleyda caawa kulamada khamiisleyda dhacayo oo Europe League iyo UEFA Conference League marka shaxdan waxa ka dhiganaa shaxda koowaad shaxda labaadna oo diskeeda inta uu ka soo badanaa oo kooxda ugu macquulsan ayadana ka soo qaadan doona asleenahay waa macquul kooxda laakiin maanta 12 kan kooxooda ka soo qaadan waxaan u badan laba gool ka imanaa sababtoo aan u leeyahay waxay tahay Europe League badana daafacyadooda uu iska furan yahay oo inta badan Europe League hada ka warqabtaan iyo UEFA Conference League ba daafacyadu iska furan yahay waa la iska dhaliyaa kubadaha inta badan waa la iska dhaliyaa marka waan meelaha ugu badan oo goolasha ugu badan ay ka yimaadaan marka waxa ugu horeysa AS Monaco iyo Red Star kooxdan ku qoran tahay marka waxaan dooranay guud ahaan ciyaartani inay laba gool ka imaan karto AS Monaco badi karto laakiin waa ciyaar adoos leedahay waa badinaysa iyada laga badi karaa ama laba gool ugu garaaci karaa marka kooxaha weyn xilliyada qaar waa u badan tahay sanadkan kooxaha weyn waa la garaacaa marka wax walba suurtagal ah marka laba gool bas aan leenahay kooxdan Lazio kooxdan kalena oo iyadana oo qaybta labaad oo UEFA Conference League shaxdeena qaybka iidan waxa leenahay Lazio waa koox iska awood badan oo ku fiican Europe League marka iidan waxa leenahay laba gool ayaa ka imaanayso oo kaliya marka Arsenal iyo Zurich waxaan u dooranay in Arsenal caawa badi karto Arsenal waa koox awood fiican kasto hadeerta xilliyada qaar waxay soo safi kartaa ciyaalkeeda laakiin kooxdan yar way ka badi kartaa waa koox aad u yar kooxda Zurich Bodeglimt iyo PSV Eindhoven awood badan laakiin waa ciyaar waxa waaye magac ahaan taasa weyn laakiin anaga waxa leenahay laba gool oo kaliya ayaa ka imaanayso guud ahaan ciyaarta Braga iyo Malmo oo ku sii xigta iidan waxa leenahay Braga iyo Malmo iidan laba gool ayaa ka imaanayso ujeedaan marka daadii aaminsan hal gool inay ka imaanayso waa ujeeda 0.5 kaas waxay laashan dhur khasaare laakiin laba gool waa macquul Real Betis iyo HJK kooxdan ku qoran tahay Real Betis aan u doornay inay badi karto UEFA Europe League qayb ka tahay tanne waxa ku yiraahdaa isha Dynamo Kiev iyo Fenerbahce sidoo kale to ku soo xigta shaxdeena qayb ka Fenerbahce iyo kooxdan marka total iidan waxa leenahay laba gool ayaa ka imaanayso guud ahaan ciyaarta Roma iyo maxaa ku yiraahdaa kooxdan kaleeto Roma iyo kooxdan kaleeto Ludogorets qoran tahay iidan waxa leenahay laba gool ayaa iidan ka imaanayso waxa ugu dambeeya waxa ku sii xigaan dhahe Istanbul BFK iyo kooxda Hertha of maxaa ku yiraahdaa qoran tahay iidan waxa leenahay inkastoo Roma ay awood badan tahay laakiin wax walba waa iska ciyaar waxa waa nasiib laba gool ayaa ka imaanaysa ayaa leenahay marka aad aaminsan Roma inay badi karto Roma badinaysa Rigas iyo Fiorentina oo ku soo xigta iidan waxa leenahay maxaan ku yiraahdaa iidan waxa leenahay sidoo kale laba gool Fiorentina badi karto laakiin anaga laba gool waa ka badan ka imaan karto meesha laba gool ka imaanaysa marka Fiorentina aad ku qanacsan tahay inay badi karto dhaho Basel iyo kooxdan kale iidan waxa leenahay laba gool kaliya ayaa ka imaanayso guud ahaan ciyaartan marka Slavia iyo kooxdan kale maxaa ku yiraahdaa iidana Sivasspor qoranta Sivasspor iyo kooxdan kale iidan waxa leenahay Slavia inay badi karto oo badan tahay laakiin waxa ciyaar iidan laba gool ka imaanayso marka shaxdeena koowaad halkaas ayaan ku soo afmeeray tan labaadna oo diskeeda badan yahay meelaha ugu macquulsan ka soo xidhi doona saaxiibayaal guulayaan isku rajeynaa doomaantiin